magacaygu waa Ismaaciil Maxamed Ismaaciil waxaan ka tirsanahay Premier Bank waxaa maanta farxadii ah inaan ka hadlo wada shaqeynta ka dhaxaysa shirkadda naqshadeynta iyo xayeysiinta ee Daawus iyo Premier Bank run ahaantii muddada aan hadda shaqeynayno oo dhan 4 sano xilligii ugu horreeyay waxaan isticmaali jirnay oo aan adeegsan jirnay naqshadeyn ay sameeyaan kambaniyo ka furan dalka dibaddiisa sababta aan saa u sameynayna waxa weeye standardka aan rabno ma aanan heli karin kambaniyo local ah oo dalka laga leeyahay oo gaarsiisan inay naqshadeynta iyo qurxinta noo sameeyaan waad dareemi kartaa sida ay dhib noogu ahayd in aan dibadda u raadsano adeegaas oo kale anagoo ka shaqeyna dhanka financialka iyo mataqaanaa kobcinta dalkan dhaqaalihiisa in badan waan ku fakaraynay waanan raadinaynay inaan helo cid hawshaas naga qabtirta nasiib wanaag waxaan oran karaa sanad iyo bar muddo hadda ah waxaa adeegaas noo hayay Daawus adeeg aad u wanaagsan oo qurxoon oo ka fiicanba kuwii aan dibadda u dooni jirnay taas waxay keentay in mataqaanaa si yar oo sahlan aan ku helo adeeg aad u qurux badan oo ah dhanka designinka iyo graphic designka oo aan dalkeena ka helayno waxaan xusi karaa shirkadihii hore noola shaqeyn jiray ajnabiga ah inay dhib ku ahaan jirtay inay dalka yimaadaan inay dhib ku ahaan jirtay inay fahmaan qaabka aan u shaqeyno iyo environment-ga aan ku shaqeyno intaba iyo baahida aan qabno exactly sida ay tahay laakiin luckily Daawus dalkeena la joogtaa anytime waan is arki karaa waa noo iman karaan si easy ah oo sahlan ayaan isu arki karnaa baahideeda ugu sharxi karnaa iyagoo ruuxadooda ay u ogaan karaan waxyaabaha aan u baahannahay waxaan xusi karaa faa'iidooyinka ay leedahay in la adeegsado kambaniyada dalka laga leeyahay especially kuwan mataqaanaa high quality ah ee u dhigma kuwa dibadda ama ka fiicnaan kara waxaan meeshan garan karaa shirkadihii hore aan u isticmaali jirnay ee dibadaha ajnabiga ahaa in aanay aad u fahmi karin caqliyadda qofka Soomaaliga ah iyo sida looga dhaadhacsiin karo qofka Soomaaliga fikradda Daawus waxay naga qabtirtay dhankaas waa dad Soomaaliya aqoonteedii leh xirfadeedii leh si sahlan u gaarsiin kara conceptiska qofka Soomaaliga ah iyagoo adeegsanaya luqad sahlan muuqaallo qurxoon waxyaabaha ay nala qabatay Daawus hadda waxaa ka mid ah xaflado inay nala qabteen inay noo sameeyeen maxaan ku raahdaa designing in branjiyo cusub aanu furnay ay designing u sameeyeen in magac alifid ay noo sameeyeen adeegyada aan bixino qayb ka mid ah waxaan u mahadnaqayaa Daawus iyo dhalinyarada ka shaqeysa aad mahadsantihiin hawsha aad haysaan